Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta. Maanta waxaan idiin soo duubaynaa barnaamijkii hore aan idiin soo duubnay ee ku saabsanay lo'da Sweden qaybtiisii labaad ayaan maanta soo duubaynaa. Maalin dhaweyto lo'da iyadoo la lisaayo maanan soo duubin waayo waqtigeedii oo la lisi jiray ayaan la gaarin. Marka maanta waxaan soo duubaynaa barnaamijkii oo dhammaystiran qaybtiisii labaad. Lo'da ilaa iyo xilliga la lisaayo marka hadda waxaa la yiri lo'da waxaa la lisaa 10 saac iyo bar. marka lo'da markii la gaaray xilligeeda iyadaaba soo kacaysa basaad u jeedaan waa diyaarsantahay maalin wada iyadoo fadhida halkaan ku arkayseen maanta lo'da iyadaa kacayso markay gaartay waqtigeeda markuu soo dhawaado iyadaaba sii istaagaysa oo fadhiga way ka kacaysaa u jeedaan lo'dan say u diyaarsan tahay marka waxyar ka bacdi meeshaan ayaa la soo mootin doonaa wadadan ay halkan ku goynaysaa kadibna ay gadaal ay galaysaa marka maanta programkii oo dhammaystiran ilaa inta laga lisaayo iyo sida loo lisaayo iyo qaabka loo lisaayo dhan ayaan isla daawan doonaa maanta hadduu Ilaahay yiraahdo marka lo'dan waa u jeedaan marka maanta dhan way iska daaqaysay hadda waa saacadda waxaa waaye adiga meeqa saac waa 10 saac oo galabnimo camal marka adiga nus saac kadib lo'dan insha Allah waa la lisaa sida loo lisaayo qaabkeeda insha Allah arkayna wax yar ayaa ka dhiman lo'da kale tan nooc kuwii kalena waa ka gadaalkaas dambe joogo oo maxaa la yiraahdaa ninkan sida uu sheegay wuxuu yiri dhowr iyo 100 neef oo lo ayuu leeyahay laakiin halkan wuxuu ku hayaa oo kaliya lo'da kuwa caanaha leh oo la liso bis ayuu halkan ku hayaa kuwa gureen oo macnaha aan caanaha lahayn meelo kale oo la daaqsiyo ay leeyihiin uu yiri marka halkan waxa waaye meesha lagu liso oo gurigiisana u dhow waa u jeedaan ninkan wixiisa dhan u habaysan yihiin gurigiisa iyo meeshii lo'da xoolaha uu ku haystay iyo gawaaridiisii wixiisa dhan waa isku habaysan yihiin marka galbihi ayaa waxa dhacdo markuu caanaha liso booyada ay imaato oo caanaha qaadato booyadaas iyadana waxa waaye waxay si sameynaysaa caanihi filtreynaysaa waxay badan oo kala duwan ay ka soo saaraysaa sida maxaa la dhahaa uustiga ama cheese-ka sida u taqaaniin ama farmaajada qof walba sida uu garanayo marka booyadahaas iyagana halkan ay ugu imaanayaan wax asaga uu doonayo malaha ninkan teeda kale u jeedin gurigiisa u jeedaa wada laami ayuu leeyahay infrastructure-kiisa meeshan wadankan loo habeeyay oo looga taxadiray waxa waaye qofka gaari ayaa meeshiis toos ugu imaanaya marka wax dhibaato dhan iyo uma maraayo maxaa la yiraahdaa iyo wada raaf iyo maxaa la yiraahdaa wada aan la dhisin iyo waxaas dhan shaqo kuma laha marka u jeedaan maanta waxaan la socon doonaa maanta barnaamijkii oo lo'da iyo qaabkeedii ayaan qaybtii labaad ayaan dhammaystiranaynaa maanta hadduu Ilaahay yiraahdo haddana tangiga oo caanaha lagu lisaayo ala dhaqaa inta caanaha la lisin ka hor waa caano dhan nadaafadda si lagu dadaalayo u jeedin tangigaas lagu lisiro waa caano odaga la lisaayo inta meesha iska leh lo'da marka la lisaayo meesha la keento yaqaanse kalmayni meeshaan ku jiro dhahay oo lo kuwa dhashta mar dhow ayaa carruurna waa kuwan hadama babies ayo kuwa waa kuwa mar dhow dhashta waa burgama la dhina فيوتون دوغ برا كان وحولي أفر تومال بسو جراو ليها كان لبي أسبوع أيو جرا بالكان ساسو جريا برا تفو فكرو ودمان درا
Nasaan 3 months kuwan waxaa waaye 3 bilood ay jiraan oo dhahay kuwan way kuwa weyn kuwa kale kuwan oo jeedo meeshaan ku xiran yihiin kuwan 3 bilood ay jiraan taasna waa kii ugu yaraa waaye kan asagana waa cunug yar waaye asagana little babies waaye meeshaan waa meesha lagu lisaayo hadda waa lasii diyaarinaa cawska meesha loo sii dhigaa ujeedada cawska loo sii dhigaa lo meeshaan isku halaynaysaa hur många ni mjölkar kossorna 2 gånger om dagen va? Och per ko hur många mjölk hur många liter kan den få? På en ko? På en ko? Ja, de kan mjölka upp på 30, 50, 60, 70 liter i en ko. Mjölkar 40 ja. 60 liter om dagen? Det är lite olika. Okej. Ujeedin wuxuu leeyahay 40 litir ilaa 70 litir aa laga lisaa uu leeyahay calaa neef ninkaan marka ujeedaa marka wuxuu haystaa dhowr iyo 20 neef uu haystaa dhowr iyo 20 kaas marka bal adiga calaa neef waxaa ku dhifataa adiga 60 bis ka dhe adiga calaa neef 60 litir maalinta laga lisaa marka adiga la xisaabta isku dirsada lo'daan marka waa lo caanaheeda aad u badan yahay waaye marka waa lo laga lisaayo maxaa la dhahaa 60 litir qaarkood xataa 90 in laga lisaa jecel laakiin normal wuxuu dhahay intay u dhaxeeyaan wuxuu dhahay waxaa laga lisaa 40 ilaa 70 litir ay u dhaxeeyaan marka insha Allah bal hadda maanta waxaan la soconaynaa barnaamijkii iyo sida uu sameynayaan hadda meeshii ay sii diyaarinayaan meeshii ay ku lisi lahaayeen ayay diyaarinayaan hadartaan Denmarkska okay kan wuxuu leeyahay baasha naaskeeda marka lagu dhaqaa intaan la lisin baasha maxaa la yiraahdaa in la nadiifiyo oo leeyahay maxaa la dhahaa lo'da candhada laga dhaqaa kadib ayaa maxaa la yiraahdaa baalahaas oo dhammahaas kan iyo ku soo meendha afreengeeda oo baalaha biyo kuleel lagu dhaqay istraashooyinka waa la daadinaa biyo kuleel inta lagu dhaqaa laga daadinaa oo marooyinka la nadiifinaa kadib candhada lagu tirtiraa soo ay wax oo nadiif ah u soo baxaan Sen, vem är det som hämtar? 3,3 grader här nere. Så det måste vara 3,3 grader? Ja, den får inte vara över 4-5 så. Okej, så det... Den får inte vara så kall så den fryser. Okej. Men det kan inte vara varmare än detta heller? Nej, inte över 6 grader går inte, men 3, 4, 5 så där går. Är det alla som kommer hämta den sen? Mjölk? Ja, de mjölkar ut. Okej. Ja, vi penicillinbehandlar om de blir sjuka, vet du, men då är det 6 dagars karens. Okej. Som vi inte får ta det i. Skulle man missa det, då åker man dit på det här provet. Okej. Och det är inte billigt. Spruta antibiotika till en ko, man måste vänta en viss tid. Ja, Hur många dagar då? 6. 6 dagar måste man vänta. Ja. Så man kan inte mjölka en ko som man blir... Nej, vi ger till kalvarna istället. Ja? Vi ger den till kalvarna. Okej. Jag får inte komma med till Ica. Nej, jag förstår. wax oo macnaha hadii aad loola yaabay ayaa waxay tahay wuxuu leeyahay lo'da markii ay lisaan qaabka loo lisaayo iyo shuruucdeeda xataa dawladda ay dejiso taas macnaheedu waxa waaye ninkan lo'da iskama lisi karo caanaha uu lisaayana waa inuu geliyaa maxaa la yiraahdaa inuu meesha uu caanaha uu ku haynayo waa inay naqataa meel qabowgeeda 3.3 degree waa inay naqataa waa inaysan ka badan waa inaysan ka yaraanin waxa kale oo leeyahay hadii ay dhacdo leeyahay neef oo neefyaasha kamid ah inuu xanuunsado oo lagu duro maxaa la yiraahdaa daawada la yiraahdo antibiotic hadii lagu duro leeyahay neefkaas lama ogolo in la liso muddo 6 cisho hadii kale wuxuu leeyahay ganaax aanan caadi ahayn ayaa lagu siinayaa marka neefka hadii oo la duro waa ina u sugta 6 maalin waayo 6daas maalin markuu wuxuu yiri neefkaas caanaha waa in meel oo gooniya lagu xiro kadib caanaha walba oo laga lisa neefkaas waa in la siiyaa maxaa la yiraahdaa in la siiyo liya maxaa la weylaash in la siiyo waa inaan qof bilaadan uusan caabin because of daawada marka taas waxay ay noo sheegaysaa Soomaaliya marka aniga joogno waxa dhacdo maqalkeed
Soomaaliya ma mar waxaa dhacdo neef oo xanuunsanayo oo xaaladiisa xun tahay ayaa waxaa lagu sameeyaa dad loo qalaa kawaankan taligiya la qalaa neefkaas waxa haay lama garanayo inuu dhibaato keeni karo lama ogo marka xataa lismadiisa iska badaawo neef oo sakrada lagu soo lisay Soomaalida dhanaan marka macnaha de waxaan caafimaadka iyo waxa in la kontrolo horta waa wax in dawladda laga rabo inay tahay way ujeedaan neef inta la soo qabto la iskama lisi karo oo macnaha de antibiyootiga dhibaatooyin badan ay keeni kartaa lagu leeyahay laakiin anaga Soomaalida aadan u sahlan waxaas iska daa antibiyootiga anaga isku durayna anaga waxa leenahay war ninka waa xanuunsan yahay dhakhtar xataa looma geenayo xaaladiisa lama horeysanayo war ku dhufaa leeyahay laba xabo cirbada marka taas waxay cadeynaysaa war Soomaaliya macnaha de aan hurdada ka kacano daawooyinka khatarta aan iska ilaalino antibiyootiga waa waxyaabaha aad iyo aad oo u xun waayo wuxuu la dagaalaa antibiyootiga lagu sheegayo waa maxaa la yiraahdaa qofka difaaciisa ayay caawinaysaa qofka markuu zaid u xanuunsado jirka waxa la rabaa asaga la rabaa inuu dagaalamo la rabaa marka jirka hadii oo mar walba antibiyootig la daba socdo marka dambe jirka daciif ay u noqonaya wuxuu markaas hadhowdi mar walba aad u baahanaysaa in lagu siiyo daawadaas lagu siiyo marka difaaca jirka ayay dilaysaa marka hal iska ilaaliyo waan u jeedaa maxal dhahaa ninkan hadda taan sidoo noo sheegay waxyaabahaasna insha Allah waxaan rajeynayaa Soomaaliya oo macnaha dawladda intay xoogeysato dawladda ay shuruuc u keento iyo qaabka wax loo lisaayo iyo insha Allah si dadka aysan ugu baabi'in waxyaabahaas oo kaleeto la soo wadaa oo ujeedaan looda halkaas laga soo wadaa waa la soo xareyn doonaa looda halkaan ay ka soo socotaa hadda waa la soo xareynayaa waa soo socotaa ujeedaan looda candhadeeda inta la facdaa ujeedaan mise liitar kaasoo kale laga lisi karaa loodan waa loo aad iyo aad u waaweyn waaye loodan dhereg kaliya la socon laadahay xooggeedii waa ujeedaan inta la facdahay waa ujeedaan hadda neefkan ilaan kugu dhaariyo fiiri neefkan tolfacaya fiiri neefkan hadda 1 kiilo ma ka yaraanaya isleedahay baahi dhan ma arkaan hadda kan hadda waa dibi halkaan ay ka soo galaysaa looda oo halkaan ay soo galaysaa neef walba markuu meeshan soo galo asaga yaqaan meesha uu istaagayo neef walba meeshan uu istaagayo meeshan loo ujeedaan meeshan waxa waa saxaradeeda lagu sameeyay inay marto oo macnaha de saxarada saysan u dhex socon meeshaas markay istaagto saxarada wax walba xaggaas meeshan ay marayaan kabacdin boosaneer xagga lagu daraa marka looda soo gali doonto arki doontaan meeshaas ay ka soo baxaysaa halkaan ay soo galaysaa baalahan waa baalihii oo naasaha loo gelinayo waaye baalahan soo ujeedaan mid walba waxaa waaye neef walba afartaa ibaa loo gelinaa kadibna saas ayaa loogu lisaa mashiinkaas ayaa ka soo qaadaya tubada mashiinkaas markay soo maraan halkaas ay soo marayaan xagga caanaha ku soo dhacaya meesha cadaanka kadibna taangigan ay soo galayaan soo jeed taangigan san weyn intaan baalkan la faahan dhan waay haantan waa buuxsamaysaa kadib dadka laga gadaa odagaan meesha asaga waa ku dhashtay aabihiis meesha joogi jiray asagaa la wareegay ilaa haddana asagaa ku koro meesha asxaabta u jeedaan
برنامجka maanta insha Allah برنامجkan waa qaybtii hore aan idiin soo duubnay maalin dhaweeto qaybteedii labaad waaye marka maanta jaanis aan ku helnay marka insha Allah barnaamijka waxaan idiin soo sheeganaa from bilow ilaa dhamaad insha Allah marka la socdo haddii aad intaan nala soo gaarteen fadlan waxaan mar kale idinka codsanaynaa inaad subscribe ka noo saartaan waayo subscribe ka maxaa la yiraahdaa haddii aad noo saartaan waa waxa kaliya aan kugu leenahay macnaha nagu caawin karta waaye adigana waxba kuma dhimaysa anigana wax weyn baa inoo taraysaa fadlan share kana taawo la qaybso maxaa la dad kale to asxaabtaada hadda loo adwaatana neef loo adwaatana mid walba ka meeshaan soo galaysaa mid walba kaas meesheeda istaagtay xagga inta loo dhigaa meeshaas dhexda soo neef walba waxaa waaye markuu meesha istaagan yahay oo gudahan mujidid mid walba meesheeda istaagaysaa marka meesha istaagtay kadib hadda tan lagu bilaabi rabaa ujeedaa tanna way soo socotaa iyadana meeshada booskeeda qaadanaysaa halkaas fiiraay wax u lagu ceerinaya malahan tartiibteeda mid walba iyada taqaana meesha booskeeda mid walba booskeeda qabsanaysaa waa tan iyada kursiga oo ku fadhiisanaya odaga baasha shaambada loo geliyo kadibna candhada si fiican looga nadiifinaa kadibna harkeena markaas dabaarka loo gelinaa maalka mashiinka dhataan loo gelinaa halkaas dabaarkaas waa lagu talaalay kulligood saasaa loo sameynaa marka meeshaan madaxa kula jirtaa inta caanaha laga lisaayo cooskeeda halkaas u yaalaa salbidan meeshaas u habaysan sidaas ay u baashaalaysaa labada wakaas cooskeeda waxeeda cunaysaa mashiinshaas lagu rakibaa caanaha halkaas tubadaas soo maraya tubadaas marayaan ilaa iyo meesha hadda arkeen halkaan ay kasoo dhacayaan soo jeed hadda lagu bilaabo waa caani soo jeed meeshaas kasoo baxaan caani soo jeed sidaas ay caanaha ku socdaan markay caanaha halka ka soo baxaan caanaha halkaana ka arki doontaan taankiga meeshaana ku shubayso markaas hadhowto
waxaa waaye waxay jirtaa 2 isbuuc ay jirtaa 14 maalin bis ay dhalan tahay awgeeda geedka fiina carabkeeda dheerkeeda fresh milk barnaamijkeeniina maxaa la yidhaha meeshaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa fadlan haddaad intaa nala soo gaartay like-ta iyo subscribe-ka waa dhankaaga wixii oo commentina maxaa la yidhaha sidaa doonto ugu rafo commentiga adiga iska leh marka waxaa waaye tan intaan ku kulmi doona barnaamijkan la mid ah waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu